Bismillahirrahmanirrahim. Alxamdulillaah. Waxaa marka hore halkan uga tacsiideynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed, eheladii iyo qaraabadii dadkii xalay ay dhibku ka soo gaaray qaraxii ka dhacay Dabiina. Intii ku dhimatay waxaan leeyahay Allah samir iyo iimaan naga siiyo, intii ku dhaawacantayna waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Midda labaad aan rabaa halkan inaan maanta idinkaga sheego waxa weeye waxaan maanta halkan isugu yeeray dhammaan qaybihii quseysay amniga qaranka ugu horeeyay wasiirka amniga iyo taliyaashii ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed oo aan isugu yeeray inay goobteeda yimaadaan si aan uga hadalno oo aan u faro wixii ku saabsan amniga guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho. waxaana faray inay laba jabaaraan amniga magaalada, xoojiyaan, adkeeyaan ilaalinta shacabkooda Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego kana codsanayaa inay adkeeyaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga qaranka iyo dowladoodaba, sababtoo ah cadawga Soomaaliyeed ee argagixisada ah cidna uma naxayaan, qofkii walaalkood uma naxayaan, hooyadood uma naxayaan, walaalahood uma naxayaan. sidaa darteed waxaan rabaa inay aada uga feejignaadaan shacabka Soomaaliyeed ayna si dhow iyo si gaarba ula shaqeeyaan ciidamada amniga iyo dowladoodaba. sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan fariin qaas ugu faro dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah laf-dhabartii dalkan. waxaan leeyahay dhalinyaro, ilaahay fursadu idin siiya, ka faa'iideysta. maanta waxaad tihiin dadkii dhulkan lahaa, dadkii ilaashan lahaa, dadkii gacantooda ku qaban lahaa. marka wada shaqeyn la yeesha dadkiina iyo dowladdiina, ciidankiina. marka waxaan idinka codsanayaa wada shaqeyntaas inaa xoojisaan.